gudahoosaadka golaha guurtida Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda xananada xoolaha iyo kalumayasiga Somaliland Siciid Sulub iyo sidoo kale xubno kamid ah wasaaraddaasi kulankan oo warbaahintu dibajoog ka ahayd oo saacado badan qaatay marka uu soo ilaaday waxa warfideenka la hadlay gudoomiyaha gudahoosaadka golaha guurtida Somaliland waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankaasi iyo waxa uu daarnaa waxana uu yiri xoolaha iyo khayraadka badda waxaanu ka xogoraysanay oo warbixin naga siiyay aad u dhameystiran habka xoolaha loo xanaaneynayo loo dejinayo looga dhigayo qaar hilib iyo caano badan leh maxaa yeelay xoolaheenu waxay inta badan leeyihiin aanay lahayn caanaha iyo hilib fiican oo miisaan fiican haddii la dhoofinayo iyo haddii dalka lagu cunayaba xarumo aanu samaynaynaa ay ku jirtay warbixintiisa ay degaan oo dabeetana cad fiican iyo caano fiican laga helo goobo siyaada ah oo bacrimin lagu sameeyo dibadda laga keeno xoolaha caanaha badan ama dalka gudihiisa laga helo ama dibadda laga keeno in la dejiyo oo la bacrimiyo oo la soo saaro xoolo ka gedisan kuwii hore oo bixiya caano iyo cad fiican meelo badan inay u sameeyeen buu sheegay oo ku jirta warbixintiisa meelo badan oo lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo beer iyo xoolihii intiiba meesha lagu wada beero oo calaf loogu beero oo dabeetana iyaguna keenaan cadi caano fiican oo la isku dhaweeyo beeraha iyo xoolaha sida caalamka rangeska la yiraahdo oo caalamka oo kale ah wuxuu kaloo sheegay wasiirku in la sameeyay khayraadkii badda oo 850 mayl ah in laga sameeyo la isu geeyo kalumaysatada dalkeena oo la taageero oo laashash iyo doonyo waaweyn oo ay ku midoobaan oo si iskaashita u sameeyaan in ay ku shaqaystaan caalamkana aan la kaashano ayuu sheegay dhankiisa isaguna waxaan faahfaahin kulankaasi ka bixin wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalumaysiga Somaliland mudane Siciid Sulub xamse dabaare RTN TV hargeysa